shaqaalaha ka howlgala dekedda magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ee dhawaan xukuumadda Soomaaliland ay ku wareejisay shirkadda DP World ayaa maanta mudaharaad iyo bannaanbaxyo ka dhigay magaalada Berbera iyagoo shaqaalahani ku mudaharaaday shirkadda DP World ee la wareegtay dekedda magaalada Berbera sidoo kalena shaqaalahan mudaharaad oo warbaahintu wax ka weydiisay asbaabaha ay u mudaharaadeen ayaa sheegay in maamulka cusub ee dekedda magaalada Berbera la wareegay ay ka jireen gunooyinka iyo waxyaabihii ay ku shaqan jireen iyagoo sheegay in maamulkaasi ay ugu caago-joogleeyeen shaqaalaha uga yeedhan doonaan dekedda Jamaal Cali ee magaalada Dubai xukuumadda Soomaaliland ay warqad ka haystaan waa sida hadalka u dhigeen shaqaaluhu waxaana hadaladoodii ka mid ahaa farsamada saaka markaan u tagnay shaqadii waxaan u xilli maxay tolay maareeyay dekedda Carabka ahaa waxaan doonaynaa lacagtii containerka iyo tii percentage-ka xaq u lahayd wixii lagu shaqadii ma hayna buuli iskala dareera waxaan ka haysanaa shaqaalaha ku sanabaa ajnabiga iyaga ajnabiga ay ka sanabaa marka dawladda waxa leeyahay 4 saacadood gudahood haday ka soo jawaabeydo waxaan sameyn doonaa aan dadka arkaysaa waa dhalinyaradii ka shaqayn jirtay dekedda weyn ee Berbera siiba waaxda farsamada loo yaqaan qaar ka mid waa sontareeladii kuwani waa kaalbaradii waa wiishashkii cagafyadii heavy duty-gii oo dhan liftariskii waxaan na qabsadayna waa carab iyo daabshiil 24 saacadood haddii ay dawladdii aanu Soomaaliland 1992 dekedda Berbera ku wareejinay haddii 24 saacadood wax kaga qaban weydo dub baanu carabta uga qabsan doonaa Berbera annaga yeelan doono ashaad soo galmay haddaanu nahay darwalinta dekedda Berbera in badan ee waaxda farsamada in badan baanu la soo jiifnay jabiyeedad walba maantana carab baa la keenaya waxaanu aqbalayna maaha haddaanu nahay laanta darwalinta ilaahay waxaanu ka baryaynaa halkii ay nagaga timin lahayn jeceliyo ayaanu ilaahay ka baryaynaa waxaan ku sheegay dadkii ilaahay xaq aan u siibaan maanta lama qabato ilaa Jamaal Cali baa laga keenayaa ciidan halago ku shaqeeyaa halago oo maanta ma waadinaan ahayn inta bartaan ugu yimaado lagu aanjoo xaqna looguma lahaada waxaan ku sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa arrinkaad hadduu ka qaban waayo waxba dawladda ka kiraysay meesha annaga nooma imanin kalabay hadlin maareeyo ayagii weli xasku ku jira waxa weeye dagaal baanu ka taaganay dagaal iminka inaanu guryahooda ugu noqonaanu halkaa ku wada laynama dib loo dhex marmaraynin la wareegay barigana la wareegay waxaanu yeelayna maaha waanaanu ka dagaalamaynaa waanaanu ka xaajo qaadnaa ninna isu daba taagmayna Berbera saaka shin baan ku lahayn waaxda oreeshka xagga dambe ninka leeyahay Ibrahim Xanaadi ee haysta DP World maareeyaha DP World wuxuu nagu yiri shaqaalaha maliyeen 500 hadii aan ugu shaqaynaynin adeer kuma dib ay joogaan u yeeranaya Jamaal Cali aan ugu yeeranaya maanta halkan igu imanaya hadii aan maliye dawladda waxaan kula heshiiyay ajnabiga ay uga shaqeeyaan tabta ayaan kula soo heshiiyay hadii ay igu shaqayn waayaan waa iska dararaysan dhibaatadan haystay waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan u sheegaynaa haddaanu tallaabada waxba ka qaban waayo waxaan u sheegaynaa inaan DP World ka joogaynin barasaabka gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed oo warbaahintu wax ka weydiisay mudaharaadka shaqaaluhu sameeyeen ee waxa hadaladiisii ka mid ahaa saaka qayb kamid ah dekedda shaqaalaha dekedda iyo qoladii DP World ayaa luqad ahaan isku fahmi weyday laakiin sayidku insha Allah oo soo gabagabeeyay xuduudiyay soo saareen arrintii aan ka war hadalnay arrintaasna waa dhamaatay ilaahay ma jira wax shaqaalo la xiroorin ka loo annagu ma aqoonsan wax shaqaalo oo xiro meesha laga soo baxay ma jirto laakiin sayna ma yaro dibadda ka sameeyay waanu ka xigay shaqaalaha dekedda wali si official ah looma wareejiyo markuu madaxweynuhu yimaado si official loogu wareejiyo imikana tanbi waxa u socda sidii loo training garin lahaa shaqaalaha wuu socota Istiqaarab Saleeban telefishinka caalamiga ee Kalsan TV magaalada Berbera